sheegtay inay kordhinayso miisaaniyad sanadeedka ciidamadeeda. Ruushka oo go'aamiyay inuu ciidamadiisa gaarsiinayo 2 milyan. Dowladda Eritrea oo u yeertay howlfuliyaha safaaradda Germany ee Casmara. Zelensky oo wacad ku maray in uu calanka dalkiisa ka taagi doono dhulka Ruushka uu ka qabsaday. Dhageystayaasha iyo daawadayaasha sharafta mudan, inta aanan u gadagalin faahfaahinta warkaas, fadlan waxaan idinkaga codsanaynaa page-ka iyo channel-ka Gaacar Media Tube ee Facebook iyo YouTube ku kala leenahay subscribe iyo follow inaad noo saartaan. Ku soo dhawaada. Taiwan oo sheegtay inay kordhinayso miisaaniyad sanadeedka ciidamada difaaca dalkeeda. Taiwan oo khilaaf kala dhexeeya Shiinaha ayaa sheegtay inay qorsheysatay inay kordhinayso 14% miisaaniyad sanadeedka ku baxaya ciidamada difaaca dalkeeda. Kordhinta miisaaniyad sanadeedka ciidamada difaaca Taiwan ayaa timid kadib cabsi la soo diristay. Waxaa xusid mudan booqashada Nancy Pelosi ee Taiwan in Shiinaha ka careysiisay, taasoo Shiinaha ku kaliftay inuu sameeyo dhoolatusyo isxigxiga aagga Taiwan ee xuduudda ka leh. Shiinaha ayaa aaminsan in jasiiradda Taiwan ay ka mid tahay dhulkiisa. Zelensky oo ballan qaaday inuu calanka Ukraine ka dul taagi doono dhulka Ruushka uu ka haysto. Madaxweynaha Ukraine Mr. Volodymyr Zelensky mar uu ka qaybgalay xuska maalinta calanka dalkiisa oo lagu qabtay Kiev ayaa yidhi, waxaan idin ballan qaadayaa inaan mar kale calankeena Ukraine ka dul taagi doono dhulka Ruushka uu inaga haysto. Calankeena dhinacan iyo dhinacaas midabada jaalaha iyo buluugga ka leh meel walba uu ku habboon yahay waan ka taagaynaa. Dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo 6 bilood jirtay ayaa ilaa haatan 20% Ukraine waxay lumisay dhulkeeda, oo macnaheedu 20% dhulka Ukraine waxaa la wareegay ama ka taliya Ruushka. Eritrea oo u yeertay howlfuliyaha safaaradda Germany ee Casmara. Eritrea ayaa sheegtay in maanta subaxdii taariikh 25 bisha 8 2022 ay u yeertay si uu sharaxaad dheeri ah uga bixiyo howlfuliyaha safaaradda Germany ee Casmara. Howlfuliyaha safaaradda Germany ee Casmara waxa uu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea. Wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Teemane Gebremichael ayaa sheegay in ay u yeereen howlfuliyaha safaaradda Germany ee Casmara si uu sharaxaad dheeri ah uga bixiyo wixii ka dhacay magaalada Jisan ee xuska dabaaldegga Eritreanka ay halkaa ku haysteen. Teemane ayaa intaa ku daray in howlfuliyaha safaaradda Germany ee Casmara ay ka wada hadleen sidii laga yeeli lahaa isla markaasina loola xisaabtami lahaa dadkii rabshadaha ka sameeyay xuska dabaaldegga ee magaalada Jisan iyo muhiimadda uu leeyahay arrinkani. Iran oo tijaabisay dronesyo cusub oo ay sameysay. Waxaa la soo sheegay in Iran toddobaadkan ay tijaabisay diyaarado drones oo cusub. Tijaabada droneskan oo socday 2 maalmood ayaa waxaa ka qayb qaatay tijaabadan 150 drones. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka cabsi qabto diyaaradahan droneska ee Iran tijaabisay in ay Ruushka u gacan geliso. Waxaa la sheegayaa in ay macquul tahay diyaaradahan droneska ee Iran sameyso in Ruushku u adeegsan karo dagaalka Ukraine uu kula jiro ama ka wado. Dowladda Ruushka oo go'aamisay tirada ciidamadeedu in ay gaarsiinayso 2 milyan. Ciidamada Ruushka oo waqti xaadirkan la sheegay tiradoodu in ay tahay 1.9 milyan ayaa dowladda Ruushka maanta sheegtay in ay go'aamisay in ciidamadeedu ay kordhinayso tiradooduna gaarsiinayso 2 milyan, iyadoo ku kordhinayso ciidamo tiradoodu gaarayaan 137,000 oo askari. Dowladda Ruushka ayaa kordhinta ciidamadan ku sababeysay halisyaha waqtigan jira ee dalkeedu uu wajahayo.